gobolka bariga dhexe jiha aad iyo aad u adag ayuu aaday marka la fiiriyo qaabka iyo dhaqdhaqaaqyada hadda ka taagan nimanka xoutiyiinta ahaa ee xalay al-Xudayda iyo deegaano kala duwan laga weeraray jawaab degdega ayay bixiyeen goobaha shidaalka ee Aramco ee wadanka Sacuudiga gaar ahaan gobolka Jizan ayaa aad loo garaacay sarkaal sare oo xuutiga u hadlana waxa uu leeyahay wali la isma gaarin oo faanole fari kama qodna dagaalka waa bilow dawladda Sacuudigana daandaansigan wixii ay ka gurato ayay leedahay jiha cusub ayaa bilaabatay gobolka bariga dhaxana waxa la leeyahay badda cas go'doominta waa sii soconaysa si gaar ah ayaanu eegi doonaa marinka Hormuz oo ah meesha Trump uu hadda dagaalka ugu adag kaga haya wadanka Iran waxa uu galayaa baa la leeyahay jawi cusub oo dagaal iyo waji aan horey loo malaysan karin Iran waxay ku eedeysaa Mareykanka inuu furay marin kale oo ku dhow marinka Hormuz kaas oo wixii ka dhacay ay leedahay iyana waa la arki doonaa Iran waxa ay bilowday in ay diyaarinaysa baa la yiri bartilmaameedka weerar cusub oo la xiriira nidaamka Israel wixii laga aamusnaadaba markan Israa'iiliyiinta waa loo soo dhigtay oo cabsi weyn ayaa haysa ninkii Netanyahu ahaana waxa uu maalmahan daawanayay casharada loo dhigayo wadamadii Carabta laakiin marka waxa uu leeyahay talow sideen ku badbaadi karaa Mareykanka ma ku sii dhawaanaya weerar ballaaran oo ka dhana wadanka Iran qodob taxliili ah oo si gaar ah u taabanaya dagaalada bariga dhexe ayaan khiyaarta ay nala socotay ku eegi doonaa iyo weerar kale oo lala beegsaday goobo muhiim ah oo wadanka Sacuudiga ku yaala qodobadaas iyo kuwa kale oo kamid ah dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka taagan gobolka bariga dhexe ayaan si gaar ah u lafaguri doonaa khiyaarta qiimaha iyo qaayaha leh ee nala socotay fadlan hilmaamina YouTube-ka inaad subscribe saartaan share garaysaana si macluumaadkan barnaamijka xiga aad qayb uga noqoto fadlan adigoo magacaaga ku bilaabaya waxaad tafaasiil ka bixisaa ama aad ka jawaabtaa weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee Sacuudiga ma waxa uu ka dhigan yahay naafayn dhaqaale oo dawladda Sacuudiga soo gaartay mase la oran karaa Sacuudiga dagaalkii muddo dheer loo qalqaalinayo in lagu jeedo hadda ayuu faraha la galay daaba waxa indhaha lagu hayay jawaabta kooxda xuutigu ay ka bixin karaan weerarkii xalay Mareykanka uu ku qaaday al-Xudayda oo ah magaalo ganacsi iyo sidoo kale magaalo dekad leh oo kamid ah ilaha dhaqaale ee xuutiyiintu ay gacanta ku hayaan hasaatee waxa la iska ogaa kooxda xuutiga in aanay gacmaha isi saaran doonin Cabdimalik al-Xuutina uu jawaab bixin doono ninkii Yaxya Saraac ahaana uu warbaahinta ka soo muuqan doono laakiin su'aalaha ugu weyn ee dooddu ay ka taagnayd waxay ahayd nooca jawaabta xuutiyiintu ay qaadi karaan iyo meelaha la beegsan karayo laakiin durbaba waxa muuqatay ilaahay dhaqaalaha ee Sacuudiga saaka 10 adag in loo dhigay oo gantaale iyo diyaarado iswada oo xuutigu ay leeyihiin Hobriska leeyahay haddaba weerarka ka dhacay Yambu iyo Jizan maxaa laga yaqaanaa talaabta xuutiyiintu ay bixiyaan sidee qaar ka mid ah warbaahinta oo faaqidayaan waxa la leeyahay xiisada u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudigu waa sii xoogaysatay Sabtidii kadib markii gantaalo laga soo riday Yemen lagu weeraray magaalooyinka Yambu iyo Jizan maalin uun kadib markii Sacuudiga uu sheegay in uu duqeeyo bartilmaameedyo military oo kooxda xuutigu ay ku leeyihiin gobolka al-Xudayda wararka ayaa sheegaya in xarun shidaal oo ay leedahay shirkadda Saudi Aramco ay ahayd baaliri goobaha la beegsaday sawirro iyo muuqaalo la baahiyay warbaahintana ka soo muuqda ayaa la arkayay tiirar madow oo cirka isku shareeray macnaheedu waxay tahay qiicayo uura sidii ushi u baxay meel la beegsaday oo ilaa iyo 4 gaaraya oo cirka isku shareeray taas oo la xiriirtay magaalada Jizan kadib weerarka waxay ka dhigan tahay marka Sacuudigu in halkaasi uu waxyeello ka soo gaareen
maadaama gantaalada goobihii loogu talagalay ay ku dhaceenna ay hadda mushkiladu ballaaratay. weerarka ayaa yimi kadib markii isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudigu uu sheegay in uu duqeeyo saldhig military oo Xuutigu ay ku leeyihiin Xudayda iyo jasiiradda Kamran. sida lagu sheegay bartilmaameedyadu waxay ahaayeen goobo qatar ku ahaa maraakiibta ganacsiga ee badda, waa sida Sacuudigu ay tilmaameen. dhinaca kale Xuutiyiintu waxa ay ku dhawaaqayaan dagaalku in uu ka bedelan yahay sida Sacuudiga ay hadda sameynayaan, oo waxaa la leeyahay dagaalka waa bilow. dowladda Xuutiga ee aan la aqoonsanayn ayaa sidaasi oranaysa. hogaamiye sare gaar ahaan madaxa wafdiga wadaxaajoodka ee maamulka Sanca ee Xuutiga, ninka la yiraahdo Maxamed Cabdisalaan, ayaa si kulul u weeraray boqortooyada Sacuudiga isagoo ku eedeeyay in ay wado go'doominta Yemen, isla markaana uu ku tilmaamay in ay la mid tahay Israa'iil oo hadda wixii ka dambeeya Sacuudiga aan wax jaxan-jaxa iyo naxariis loo sameyn doonin. sidaas ayuu sargaalkii wadaxaajoodka iyo galkii wadahadalka u hayay kooxda Xuutiga uu saakay ka sheegay magaalada Sanca. Cabdisalaam waxa uu sheegay in duqeynta lagu bartilmaameedsaday garoonka caalamiga ah ee Sanca ay caddayn u tahay sida uu hadalka u dhigay in Sacuudiga wali diidan yahay garoon dib loo furo, isla markaana uu doonayo in furitaanka uu ku xirnaan karo ogolaashiyo boqortooyada ah. taas uu yiri waa bahdilaad dowladda Yemen Xuutigu aanay qaadan karin. waxa uu sheegay in Sacuudiga dhinaca kale uu sheegay in uu difaacayo madax banaanida Yemen, halka dhinaca kalena uu sii adkeynayo xayiraadda saaran garoomada iyo dekedaha waddankeena. hogaamiyahan Xuutiga ayaa ku dhawaaqay eedeyntan muddo 8 sano ah ka gadaal markii dagaal dheer uu socday, isla markaana lagu guuldaraystay dagaalka in hadda uu adeegsanayo baa la yidhi xayiraad dhaqaale oo ay bilaabeenba Sacuudiga iyo kooxda uu taageersan yahay ee Carabtu in ay tallaabooyinkaasi qaadaan. waxa uu sheegay in Sacuudiga naftiisa uu soo bedelay cadow oo Yemen leedahay, isagoo ka digay haddii ay sii wadaan siyaasadda uu ku tilmaamay iska indhatirka xaqiiqada ay ka dhalan doonaan buu yidhi cawaaqib culus oo saameyn doona amniga iyo dhaqaalaha boqortooyada. waxa uu ku dhawaaqay in xayiraadda maraakiibta badda ay tahay buu yidhi tallaabada ugu horeysay waxa uu ugu yeeray dagaalka lagu wajahayo go'doominta, isagoo ku tilmaamay waddankiisa in aanu isdheebi doonin. afhayeenka isbahaysiga Carabta ninka lagu magacaabo Turki al-Maliki ayaa waxa uu sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday goobo military oo la xiriira kooxda Xuutiga ee weerarka dhanka maraakiibta ganacsiga iyo kuwa caalamiga ah ee ku sugan badda ay yihiin xaqiiqo sax ah oo muhiim u ah in gobolkaasi xaaladiisa lagu dejin karo. kooxda Xuutigana ay noqon karaan baa la yidhi kuwa isbedelka dagaalka iyaga bilaabay, sidaas daraadeed Sacuudiga aanu eegan doonin maraakiibtiisa dagaalka ee la gubayo. haddaba nimankii Sacuudiga iyo Xuutiyiinta ahaa kooxdii Shiicada ee Yemen joogtay waa ishayaan, waxaanay u muuqanaysaa markan Cabdimalik al-Xuuti iyo Maxamed bin Salmaan in sheekadu ay noqon doonto ninkii raaya ayaa badda cas ka talin doona, iyadoo maalmo ka hor la sheegay in dowladda Iiraan qubaro military oo ilaalada kacaanka ka tirsan hub iyo saanad ciidan ay geysay qaybo ka mid ah waddanka Yemen, gacantan ay u galeen kooxda Xuutiyiinta. ayuu dagaalkan mar kale bilaabanaya. marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz weji cusub ayuu galayaa marka la fiiriyo dagaalka maalmihii ugu dambeysay ka taagnaa gobolka Bariga Dhexe. Trump waxa uu boodo uu dhacaba awoodiisa waa ay gaari leedahay marinkaasi inuu ka dhigo goob ammaan ah, dhagahana uu ku dhufto dowladda Iiraan. taas bedelkiisa isaga ayaaba ardaadiqada laga dhigay qaybo ka mid ah goobaha isaga uu joogo ee gobolka Bariga Dhexe waa Mareykanka halka marinka Hormuzna ay noqotay meel Iiraan wixii ay doonaan ay ka sameeyaan. shirkadaha caymiska maraakiibtu waxay leeyihiin halkan Trump uu iskuma soo aadi karno adigoo markab galbinaya oo ciidamadaada cirka ay ka taageerayaan ayaa halkaasi lagu ololiyay. marka yaa dabaalaho duurka loo dirayaa suuragalba ma aha
inta halkaasi dagaalku uu ku holcaya inaan galayno. waxaa muuqata baa layidhi in xiisada ku saabsan marinbiyoodka Hormuz ay u gudbayso marxalad cusub, iyadoo dareenka caalamka uu si tartiib uga leexanayo iska horimaad military oo Iiraan isla markaana u wareegayo ilaalinta ganacsiga iyo maraakiibta caalamiga ah. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay yaraadeen weeraradii ka dhici jiray marinbiyoodka, isla markaana ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo wadamada gobolku ay sii wadaan si loo soo celiyo xasiloonida mid ka mid ah marinbiyoodyada ugu muhiimsan ee caalamka oo hadda sida hub nuclear oo kale ah ay u isticmaalayso dowladda Iiraan. sida ay sheegayaan diblomaasiyiin reer Yurub ah iyo waliba ilaa ka shaqeeya dhoofinta iyo waaritaanka xogahu waxay leeyihiin baa layidhi iyagoo xaganaya wargeyska caanka ah ee The Axios, Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriisku waxay qorsheynayaan in toddobaadka soo socda ay yeeshaan magaalada London shir heer sare ah oo dhinacyadan ay kaga arrinsan doonaan arrimaha marinkan. shirka ayaa lagu falanqeynayaa suurtagalnimada dhismaha isbahaysi caalami ah oo qaabilsan sugidda amniga maraakiibta iyo xorriyadda isu socodka maraakiibta marinbiyoodka Hormuz. halkan waxaa ku hoos qarsan dowladda Ingiriisku waxaa lagu jeedayaa dagaalka, waxaana ay markan hor istaagi doontaa dowladda Iiraan. halkan ayaad ka dhadhansan doontaa sida majaladu ay qorayso. ila wareejada waxay sheegayaan waqtiga rasmiga ah ee shirka iyo ujeedadiisu wali kama dambays looma go'aamin, hase yeeshee wadahadalladu wali waa soconayaan. haddii qorshaha uu hirgalo waxa uu noqon karaa tallaabo cusub oo ay quwadaha reer galbeedku ku doonayaan inay ku ilaaliyaan ganacsiga caalamiga ah iyo socodka shidaalka, iyadoo la adeegsanayo iskaashi caalami ah halkii xoogga la saari lahaa kaliya tallaabooyinka militariga sida ka muuqanaysa dagaalka. Iiraan iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin waa baraarugtay, waxaana ay Mareykanka leedahay marin kale ayaa doonaysaa inaad furto, laakiin waxaad ka hesha adiga ayaa iska leh. wasiirka amuraha dibadda Iiraan Cabbaas Caraaqji ayaa ka soo muuqday warbaahinta isagoo aad u doodaya isla markaana dowladda Mareykanka dhaleecayn oo dhan dusha ka saaraya. wasiirka amuraha dibadda Iiraan Cabbaas Caraaqji waxa uu ku eedeeyay baa layidhi Mareykanka inuu qaaday tallaabooyin ka hor imaanaya heshiiska is-afgaradka ah ee ku saabsan marinka Hormuz, isagoo sheegay in Washington ay furtay buu yidhi marin cusub oo aan waafaqsanayn qodobadii lagu heshiiyey. Caraaqji ayaa sheegay in qodobka 5aad ee heshiiska is-afgaradka uu si cad u sheegayay in Iiraan ay tahay dhinaca go'aaminaya baa layidhi habraaca iyo nidaamka maraakiibtu ay uga gudbayaan halkaasi. waxa uu sheegay in tallaabada Mareykanka ee lagu furay marin kale aysan waafaqsanayn heshiiska, halka Washington ay ahayd in ay la tashato Tehran ka hor inta aanay tallaabadan qaadin. waxaa sidoo kale la xusay kadib markii ay dhaceen iska horimaadyo gudaha Hormuz, labada dhinac waxaa intii lagu jiray wadahadallada ka dhacay Switzerland ay ku heshiiyeen samaynta qad isgaarsiin oo toos ah oo dhinacyadu ay ku wada xaajoodaan. markan aan arrinta Hormuz halkaasi ku xiro, xiisada aad ayay u sii adkaanaysaa. nimankii Israa'iil ahaa waxay yiraahdaan keble yoorar ayaan nahay, dagaalka bariga dhexe inaga Iiraan ayaa nagu jeedi karaysa. nimankii Iiraan ahaa waxaa la leeyahay waxa suuragal ah saacadaha soo socda duqeyn aan la arag oo aan la maqal in nimankii lagu qaadayo la yiraahdo aan Israa'iil. ninkii Netanyahu wadnaha ayuu farta ku hayaa maanta. sidaasi waxaa qoraya qaybta wararka ee Al Jazeera ee dhinaca digitalka ee Al Jazeera Net la yiraahdo. haddaba ila amni oo Iiraani ah ayaa u sheegay Al Jazeera Net in ay diyaarisay baa layidhi Iiraan liis cusub oo bartilmaameedyo ah oo ku yaala gudaha Israa'iil, waxaana la sheegay in la doonayo in Israa'iil si toos ah uga qayb gasho dagaal ka dhan ah wadanka Iiraan. sida ay u sheegay ilahaasi, bartilmaameedyada cusub waxaa la xusay in ay noqon doonaan goobo ay adag tahay in dib loo dayactiro ama dib loo dhiso muddo sanado ah, hase yeeshee ma uusan shaacin nooca ay yihiin, goobaha ay ku yaalaan, ama in ay xarumo military iyo kuwo dhaqaale iyo kaabayaal kala duwan oo muhiima la garaaci doono.
isha amniga ayaa intaasi ku dartay in weerarka lagu qaadi doono sida uu qabo sababi kara baa layidhi saameyn muddo dheer soconayso Israa'iil ku habsata. dagaalkan ayaa lagu tilmaamayaa abaabulka iyo samaynta kaartada masiibada loo yaqaano oo hadda gacanta uga jirta dowladda Iran qubradeeda dagaalka. warbixintu waxa ay ku soo beegmaysaa xilli dagaalka xoog leh ee gobolka bariga dhexe hadda galgalaya ay yihiin kuwa ugu xoogan ee laga baqayo dagaaladu in ay sii xoojiyaan. iyadoo marka dowladda Iran ay leedahay aniga weerarka aan qaadi karo ee Israa'iil waxa uu noqonayaa mid mustaqbalka wadankaasi baabi'inaysa, dhinaca kale Mareykanka ayaa waxa la leeyahay waxa uu isu diyaarinayaa ballaarinta dagaalka ka dhanka ah ee dowladda Iran. ninkii Trump ahaa waxa uu dareemayaa in aanu weji kalaba u furnayn oo ah dowladda Iran in uu sukulo, waa sida isaga uu leeyahay, halka Iran ay leedahay tunkayga iyo muruqyadayda baad arki kartaa ee anigoo nugul lagama yaabo inaad aragto. waxa uu santajigayga kuu sheegin ama qoortaydu aniga kuu sheegi maayo. gobolka bariga dhexe ayaa wajahaya xaalad kacsan iyadoo dagaal u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran uu galay baa layidhi marxalad loo arko midii ugu halista badnayd tan iyo markii uu bilowday bishii Febraayo ee sanadkan. hadallada madaxweyne Donald Trump oo la taxliiliya ayaa sheegaya diyaar garowga weerar ballaaran oo ka dhana Iran oo dhammaystiran baa layidhi sarana uu qaadaya walaaca laga qabo in colaadu ay isu bedesho dagaal baaxad leh oo gobolka bariga dhexe galgala. dhinaca kale dadaalada diblomaasiyadda ayaa weli socda iyadoo dhexdhexaadiyaal kala duwan ay isu diyaarinayaan inay dib u soo celiyaan Washington iyo Tehran inay miiska wada xaajood ka yimaadaan. saaka wakaalada wararka ee Reuters ayaa soo xigatay 3 ilo oo Pakistani ah Islamabad iyadoo wadda baa layidhi weji cusub oo lagu soo nooleynayo wada hadalka hakadka galay ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran. dadaaladan ayaa la sheegay in ay daba socdaan hindise ay hore u soo bandhigtay dowladda Shiinaha. xaaladda ayaa muujinaysa laba jihadood oo isbarbar socda. dhinaca militariga waxaa jira calaamado muujinaya dagaalka in aan waxba la isku aabayeelin oo nin kasta ninka uu ka awood badan yahay uu cagta hoostiisa gasho. iyo dhinaca diblomaasiyadda oo ay socdaan baa layidhi dadaalo qarsoodi ah oo ay wadaan dalal dhexdhexaadayaal si looga hortago dagaal furan oo ballaaran oo gobolkaasi galgala. ilaan dambaanburada dhimisha dagaalka haddii ay meel ku dhacda ma jirto cid ay si gaar u cafinaysa gobolka oo dhan ayaa ololaya. marka nimankii carabta iyo wadamadii Aasiyada ku yaalay waxa ay sameynayaan dadaalo kasta oo dagaalka lagu joojinayo. inkastoo hadallada iyo dhaqdhaqaaqyada military ay kordhayaan cabsida laga qabo isu dhac weyn, haddana ma jiro war rasmi ah oo soo baxaya oo ku aadan dagaalka in uu jiha saxa hadda aaday. waan eegi doonaa wararkaasi waxay ku soo kordha. hase haatee su-aasheenna maanta waxay tahay Sacuudiga weerarka lagu qaaday Jiisaan iyo gobolka kale Yanbu la yiraahdo ma waxay ka dhigan tahay burburinta dagaal dhaqaale mase lagu jiiday dagaal mustaqbalkiisa uu ku seegi lahaa. magacaada iyo meesha aad joogta ku bilow kadibna hoos inoogu qor.